ka waran haddii aad ka soo qayb gasho tacsidaada. Arrin la yaab leh ayaa ka dhacday xaafad ku taalla ismaamulka Homa Bay ee dalka Kenya kadib markii uu munaasabad tacsi ah soo dhex istaagay ninkii loo baroordiiqayay. Ninkan tacsidiisa loo fadhiyay oo 38 jir ah ayaa la rumaysnaa in uu geeriyooday muddo hal bil ah ka hor. Ku dhowaad 20 sano oo uu ka maqnaa reerkiisa ayuu si lama filaan ah ku yimid guriga waalidiintiisa oo xilligaas ay ka socotay tacsidiisa dad badanna ay isugu yimaadeen. Ninkan ayaa la sheegay inuu tagay magaalo lagu magacaabo Mbita oo isla dalka Kenya ka tirsan, halkaas oo uu kalluumaysto ka noqday. Ninkan oo lagu magacaabo Kennedy Olwa ayaa qoyskiisa lagu wargeliyay inuu u dhintay xanuun oo muddo loo ildarnaa. Reerka ayaa sidoo kale loo sheegay in boolisku ay geeyeen isbitaalka guud ee ismaamulka Homa Bay. Qoysku wax waqti ah iskama aysan lumin, durba waxay bilaabeen inay aaska diyaariyaan, waxayna geeridiisa ka shaaciyeen idaacad maxalli ah si dadka loo ogeysiiyo. Dhageysiga geeridiisa oo lagu dhawaaqayo si lama filaan ah, Mr. Olwa oo raadiyaha dhageysanayo isagoo shaqadiisa kalluumaysiga ku guda jira ayaa mar qur ah maqlay in geeridiisa la shaacinayo, iyadoo markaas la sheegay inuu u dhintay xanuun aan la aqoonin. Durba waxa uu soo aaday dhanka qoyskiisa. Sababta ugu weyneyd ee qoysku ugu degdegeen tacsidiisa ayaa lagu sheegay in ay tahay maadaama wiilkoodu uu horeyba uga maqnaa muddo 20 sano ah, ilaa waqtigaasna aysan wax war iyo wacaal ah toona ka hayn. Markii uu xaafadii soo gaaray, wuxuu u yimid dadkii munaasabada tacsida ka soo qayb galay oo khudbado jeedinaya. Khudbadii ayuu la wareegay, wuxuuna dhammaan eheladiisa u sheegay inuu nool yahay, wax walwal ahna aysan isgelin. Meydkii lagu qalday isaga oo ahaa qof kale ayaa la aasay maadaama cidna ay sheegan weysay. Dhacdadan la yaab kale ayaa lagu daabacay wargeyska Daily Nation. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan muuqaalka like saar. Mahadsanid.